haweenka iyo gabdhaha ay la kulmaan tacdiye badan hadii ay noqon lahayd kufsi hadii ay noqon lahayd jirdil. Xuquuqda haweenka waa xuquuq asaasi ah oo ka mid ah xuquuqda aadanaha, kuwaasi oo xaqiijiya karaamada, badqabka iyo sinnaanta haweenka. Ka qaybgalka haweenka ee bulshada waa tiir muhiim u ah horumarka, cadaaladda iyo nabadda bulsho kasta. Bulsho aan siin haweenkeeda xuquuqdooda buuxda ma gaari karto horumar waara. Haweenku waxay xaq u leeyihiin waxbarasho, caafimaad, shaqo, ka qaybgalka siyaasadeed iyo in laga ilaaliyo dhammaan noocyada tacadiyada iyo xadgudubyada. Si kastaba ha ahaatee, haween badan ayaa weli la kulmaya tacadiyo kala duwan sida kufsi, jirdil, guur qasab ah. Tacadiyadan waxay si toos ah u dhaawacaysaa nolosha haweenka, waxayna u horseedaa dhibaatooyin nafsiyadeed. Kufsigu waa dembi aad u culus oo ka dhana xuquuqda aadanaha, waana xadgudub ba'an oo lid ku ah sharciga, diinta iyo dhaqanka suuban. Gabdhaha iyo haweenka dhibanayaasha ah badanaa waxay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan, taasi oo ka hor istaagta inay helaan gargaar iyo cadaalad buuxda. Ka qaybgalka haweenka ee bulshada, gaar ahaan dhinacyada waxbarashada, hogaaminta iyo wacyigelinta, wuxuu door weyn ka qaadanayaa ka hortagga dhibaatooyinka loo geysanayo haweenka. Marka haweenka la siiyo fursad, waxay kaalin muhiim ah ka qaataan difaaca xuquuqda aadanaha, taageeridda dhibanayaasha, iyo dhisidda bulsho ku dhisan ixtiraam iyo cadaalad. Ugu dambeyn, horumarka bulshada lama gaari karo inta haweenka lagu hayo tacadiyo iyo xadgudub. Ilaalinta xuquuqda haweenka, la dagaalanka tacadiyada loo geysanayo, iyo ka hortagga kufsiga waa mas'uuliyad wadajir ah, taasi oo saaran dowladda, hay'adaha, culimada, iyo bulshada guud ahaan. Bulsho haweenkeeda ilaalisa oo ka qaybgelisa horumarka waa bulsho nabad iyo horumar gaarta. Cabdikaafi Sheekh Axmed, Garsoor TV, magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose.